أنا غير شرفت رويدين سدويني أمر كره مركا حكتا وايدين كما تعلن سيد قروح بدن له ودنا لا سعوتان iyo si aad noo dhiirigelinaysa comments-keena wixii wala socona intaas markaan ka soo tagno waxaan jeclaystay clip yar oo wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka hadlayo kulli wiilka magaciisa meeshaan kuma qorna umaleynaa waa muuqaalkiisan ka dhaxlay social media asigoo dhax socda marka bal muuqaalkan wax yar aan daawano horta afkeygan ku hadlaa af arday kuma hadlaayo mid shirkadeed kuma hadlaayo mid dawlad iyo mid macrad midnam kuma hadlaayo waxaan idinku bilaabaa washaahidin wa mashhuud ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul buruj wuxuu ku leeyahay washaahidin wa mashhuud horta dadka laga tashanaayo ama loo tashanaayo aniga ee inta ila mid ka ah waay cid walbana waa isfeesay oo waa is sheegtay laakiin hadda ka hor Soodara iyo Masar iyo meelihii la aadi jiray waxa is haysan jiray sida cadka hadda professorada oo anaga waxna soo baray u sheegeen hawiye iyo daarooda is haysan jiray ilaahay wuxuu soo saaray isku haysteen in diil iyo mirifle ay hadana beel kale noqoto shalay konton u qaadanayeen war waxa loo soo socdaa beesha laxaad oo qaramada midoob ah iyo amisom inay meesha xuquuq ku yeeshaan oo bari go'aan ka gaari weysaan raajis aaw ma maqaamka muqdisho iyo wuxuu kala hadlaa maya maqaamkii wax ma kala hadlaa bukaat marka waxaan rabnaa aniga waxaan joogay oo aan ku dhashay meesha aabahay iyo aabiis ay ku dhasheen wax beenana ma family ahalna waa loo baari karaa cid nagala tashato iyo cidna weydiiso iyo cid noo wacdo oo mayn ka hor ma arkay haday main ay tahay meeshii decision makers ay wax ka maqlaayeen nimayo hadaad noo tashanaysaan diyaaraan nahay adinka soo heshiiya annaga la noo tashtana maamula war hadaad tihiina dad nala tashanaya nimayo marqaati kaliya ma yihine maskax iyo ilaahay wuxuu nasiiyay aqoon mid cadaalad laga soo raadi karana waa nahay weligeedna ogaada dadka gibilcadka ah waxa lagu aamini jiray laba shay amaanada oo ah xoolaha dawladda iyo sirta dawladda saraakiisha qarsoon ee dawladaha la soo shaqeeyay gibilcad ay ahaayeen kaashiyerada ama kaasafoortooyinka dadka hayeen gibilcad ay ahaayeen nimayo cadaalad iyo amaano ayaa idin haynaa nala tashada haddii la waayo oo aadan u baahneen waxaa heli kartiin inaad noo tashatiin oo aad idin la dagaalina oo aad idin wax dhibina oo aad noo tashataan bis wabilaahi tawfiiq ha noo heshiiyo horta ninkan wuxuu ka hadlaa malaynayaa aan saan u fahmay nidaamka dawladnimada iyo dawladnimadana qabiilka isku haysanayo waxyaabahaas uu ka hadlaya marka muuqaalkiisa soo dhameystiran inaad daawateen aan filayaa waxa kaliya maanta meesha iska Soomaalina aan ka hadlaysanayo waxa waaye qolo markii meel qabato in qolada kale ka daba raacsato marka waxa waaye darandoori halkaas taagnaa marka Soomaaliya waxay idin leenahay ninkaas dhalinyarada ah wuxuu soo u fikiraya si ka wanaagsan aan wada fikirno waa idin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh